بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. magacaygu farxaan ismaaciil jibriil degan gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco maanta ay taariikhdu tahay 2021 bishii koobaad sodonkeedii maalin sabti ah waxaan ku soo boqonay hoyga ay ka degan yihiin qoys tan yar ah oo haysta laba gabdhood laba hablood araga naafaka ah oo adeebada kale ku soo boqonay gurigoodii annaga oo ay noo soo wakiisheen aniga walaashay hibaaq maxamed noo soo wakiisheen hablaha ururka araga naafada ka ah tafbaleen geeralis inaan soo gaarsiino oo ay noo soo dhiibeen noo soo wakiisheen hablaha araga naafada ka ah tafbaleen geeralis raashin dhameystiran oo aan maanta ku soo gaarsiinay hoygooda ka degan yihiin magaalada burco aan soo gaarsiinay waa kaas halkaas u yaala iyagana waa kuwa halka taagtaagan hooyada iyo hooyadood waa kuwa halka taagtaagan waa laba hablood oo araga naafada ka ah insha Allah ta'ala waxaan ku soo dhaweynayaa walaashay hibaaq maxamed ibraahim sida insha Allah ta'ala nagu faahfaahiso hablaha yarna ay uga waranto insha Allah ta'ala magacaygu waa hibaaq maxamed sidoo sheekh farxaan ka dhawaajiyay waxaan maanta soo booqanay laba gabdhood oo tabaalaysan oo magaalada burco degan labada gabdhood araga naafay ka yihiin sidoo kale waxay kala ka siman yihiin labada gabdhood dhinac bay ka yihiin baarlays ama naafo dhulka ma istaagi karaan ilaa la kaxeeyo ama qof caawiyo oo garab galo sidaa daraadeed waxaa noo soo wakiishay ururka hablaha araga naafada ka ah ee magacooda la taf balayn geeralis ee fadhigoodu yahay magaalada hargeysa raashin dhameystiran oo intii la quudan lahaa hal bil ah marka maantan u keenay maanta taariikhdu tahay 30kii bishii January 2021 maalin sabti ah rasiidkii aan ku keenay raashinka waa kan ama juwankii raashinka kolba sida u taqaanaan waa raashinkii la quudan lahaa hal bil oo aan labada gabdhood yar araga naafada ka ay ku soo caawiyeen hablaha araga naafada ka ah la yiraahdo taf balayn geeralis waxaan ahay hablahan araga naafada ka ah hooyadood waxay kale oo labaduba qabaan mid walba jeex baa xanuunaya midna jeexa midigta midna jeexa bidixda booqashadooda horta marka hore waan uga mahad celinayaa iyo imaatinkana ii yimaadeen waxaan leeyahay jazak allah khayr ilaahay khayr iyo xasanaad haydi siiyo haydina dambi dhaafo waxaan kale u mahad celinayaa qolada soo abaabushay imaatinkan la ii yimi ee laygu soo booqday ee la yimi ee tiifiga layga duubay insha allah idinkana aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waa qoladan soo dirtay hablahan araga naafada ka ah markaa hablaha in badan baan la daala dhacaynayay in badan baan dalka kula wareegayay markii hore indhaha waxbayba ka yar arkayeen imanka indhihii dam yidhaahdeen hase yeeshee digtooradii waxay yidhahdeen dibada haddii la qoodsiiyo indhaha iyo jeexyadan ay ka naafada yihiin waa neerfo waxa laga yaabaa in loo helo dawo dibadda qabadsii bay u yidhaahdeen dibadii meelaan waxaan ku qabadsiiyo waan waayay awood baan u waayay dibadii aan qabadsiin lahaa markaa waxaan ka codsanayaa muslimka iyo muxsiniinta inay iga soo caawiyaan hablaha waxaan dhaqtar ku qabadsiin lahaa جزاكم الله خيرا وجزاء وأحسن الله إليك إلهي سبحانه وتعالى هبركيو عافمادنا الله سيو لبدا هبلو أركا نافذا كأه لباتيسان حنونات يدروفتنا أيو ديرتها بقرار أنت أمد المسلمين تأه خير كجعل محسنين تأه ثم فلاياش وحنوقو باقيا ولا ليال waxaad ogsoon tihiin dhibaatada ay leedahay arag la'aantu taasoo ay u raacday xanuun dad qofku ayagoo aan istaagi karin oo jeex qalalay labada habloodba sida insha Allah ta'ala hooyada noo sheegtay marka waxa leeyahay walaalayaal waxay leedahay xanuunka ay leedahay waa dareemi kartaan dhibaatada hooyo laba caruura ka indhabeeleen kadibna xanuun u raacay kadibna u weyday waxay ku maarayso xanuunkoodii ama noloshoodii guudba waxay ku maarayso hooyo weyday laba hablood waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay ummadda muslimiinta ah ee khayrka jecel oo samafalayaasha ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wax siiyey waxaan ugu baaqaynaa
inay gacan ka geystaan labada hablood ee aragga naafada ka ah jeexuna qalalay aabahoodna waa baarlays isaga qudhiisu waa dhuljiif dhulyaal weeye hooyadoodna wax ma hayso walaalayaal la soo caawiyo gabadha insha Allah taala hablaha aragga naafada ka la soo caawiyo oo hal la geeyo dhakhtar hal la geeyo oo hal la siiyo waxay quutaan oo waxay caafimaad ka dhigtaan caafimaadkoodii ay ku baadhaan oo dhakhtarra ay ku tagaan hal la siiyo oo dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay ee dal iyo dabadba joogaba insha Allah taala dadka hoos loo eego waa kuwii insha Allah taala khayrka iyo wanaagga laga helayay waxaan u ducaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala cid kasta oo wax ka geysata oo insha Allah taala hablaha gacan qabata oo wax siisa oo hoos u eegta oo wax ku soo tarta ilaahay aan ducayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad Allah siiyo waxaan sidoo kale xusid mudan hablaha aragga naafada ka ah ee taf baleen geeralis oo iyagu markastaba heegan u ah markastaba u taagan siday u soo saari lahaayeen ama dadka u tusi lahaayeen inay dadka araggala ee guryaha iska fadhiya ee aan ilaahay mooye cidi ogeyn sida insha Allah taala guryahooda uga booqan lahaayeen waa kuwa maanta halkan keenay waa kuwa raashinka noo soo dhiibay wanaga guddoonsiinay ilaahay insha Allah taala bishan wax cun lahaayeen wanaga u keenay ilaahay subhanahu wa taala Allah ka abaal mariyo ilaahay subhanahu wa taala ka abaal mariyo cid ay ka soo qaadeen Allah subhanahu wa taala ha barakeeyo waxaan leenahay hablahaas dhakhtar bay u baahan yihiin dhakhtar dabadeed u baahan yihiin arag la'aantii waxa u raacay xanuun jeexaan iska taag karayn lug iyo gacan baa qalashay oo aan iska taag karayn mid walba marka waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hore Allah shaafiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala shaafiyo caafimaadkooda Allah u soo celiyo ummadana waxaan leenahay walaalayaal xanuunka iyo dhibaatada u leeyahay wad ogsoontihiin ha laga soo gaadho oo ha laga caawiyo hablaha yaryar dhakhtar waxay ku tagi lahaayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka bixiya hase yeeshee sababtii insha Allah ta'ala dhakhtar ku tagi lahaayeen iyo isku daweyn lahaayeen insha Allah ta'ala ha loo gurmado oo ha laga garab siiyo oo ha laga soo caawiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala idin barakeeyo aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh